Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay talaabadii madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee uu ku shaaciyay liiska musharaxiinta golaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo sidoo kale soo saarista doorashada ee xubnaha golahaasi. Ugu horreyn, Ra'iisul Wasaaraha ayaa bogaadiyay ku dhawaaqista liiska 5 ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee laga soo dooranayo Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sida ay u tartami doonaan, waxaana uu sheegay inay tahay talaabo hore loogu qaadayo doorashada. Sidoo kale wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada ka dhaceysa magaalada Baydhabo ay ku qabsoonto jawi nabadoon oo hufan isla markaana lagu kalsoonaan karo. Waxaan madaxweyne Laftigreen iyo guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ku bogaadinaynaa soo saarista jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare iyo liiskooda, anigoo u rajeynayo in doorashadu ay ku qabsoonto jawi nabadoon oo hufan, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale faray maamulada kale in ay dedejiyaan qabashada doorashada, gaar ahaan tan soo xulista xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya. Dhinaca kale, diiwaangelinta qabashada codsiyada iyo shubitaanka khidmooyinka ee musharaxiinta aqalka sare ayaa loo qoondeeyay maalinta oo ay tahay 1 bisha Agoosto oo maanta ku beegan. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqon doona midkii labaad ee qabta doorashada aqalka sare kadib maamulka Jubbaland oo qabtay Khamiistii la soo dhaafay. Dhanka kale, musharaxiinta u tartamaya xilka senatarada aqalka sare ayaa laga reebay Senator Ilyas Cali Xasan iyo sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Ilyas Cali Xasan ayaa waxa uu ka tirsan yahay xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waana xogayaha arrimaha dibadda ee xisbigaasi. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud asna waa xubin ka tirsan xisbiga UPD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidaan ku ogaanay, go'aanka Ilyas iyo Xuseen looga reebay liiska musharaxiinta aqalka sare uu ka yimid madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka go'an tahay in xildhibaano daacad u ah ay ka soo baxaan Koonfur Galbeed. Kursiga Ilyas ayaa waxaa loo sharxay inay ku tartamaan 2 gabdhood oo kala ah Ayaan Aadan Cabdullaahi iyo waliba Farxiyo Nuur Aadan, halka kursiga Xuseen Sheekh Maxamuud loo sharxay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Aadan Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan. Laftigreen ayaa sameeyay in kursiga Ilyas Cali Xasan oo ka soo jeeda beesha Eelay uu ku wareejiyay beesha Hariin ee uu ka soo jeedo, lana filayo in ay ku guuleysato Ayaan Aadan Cabdullaahi maadaama Laftigreen uu wato. Kursiga Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka soo jeeda beesha Hadamo ayaa weli dhex yaala isla beesha Hadamo oo ay ka soo wada jeedaan Aadan Cabdinaasir Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan. Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in sabab la'aan looga reebay liiska, waxaana uu intaa raaciyay inuu filayo inuu irsaday mowqifkiisa daldhisidda ahaa. Soomaaliya oo marxalado kala duwan ka soo martay doorashada ayaa haatan rajada waxay maraysaa meel wanaagsan maadaama la gudagalay qabashada doorashada ee 2021. Cabdifataax Muumin, 5TV, Muqdisho.